bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal halkan waa janalkaynu ku leenahay youtube-ka ee nuxurka wararka waxaad kusoo dhawaataan oo aad kusoo socdaan barnaamijyadeena qodobadeena kuwooda ugu waaweynna saaxiibayaal daawadayaal waxaa ka mid noqonaya Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa laga xusay oo markaasiba looga baroor diiqay qarixii 14 Oktoobar gilgilay magaalada caasimadda ee Muqdisho gaar ahaan isgoyska Soobe warar dheeraad ah ayaynu barnaamijkeena idinkugu soo gudbin doonaa. Dowladda Federaalka Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed ayuu ugu baaqday in ay maanta aarsadaan oo ay argutaan maadaama dagaalo culus oo Al-Shabaab looga soo horjeedo dalka ay ka holcayaan amaba ay ka soconayaan. Warar dheeraad ah ayaynu barnaamijkeena idinkugu soo gudbin doonaa, halkan ayaana idinkugu qaadaan dhigi doonaa. Shacabka Soomaaliyeed ee xilligaasi ka faa'iideysan waayay dagaalka Al-Shabaab ayaa haatan ka faa'iideysanaya. Qabaa'ilkii ayaa kacay oo qoryaha qaatay, nabadoonadii ayaana hogaaminaya bulshadii ay matalayeen amaba qabiiladii ay u showhayeen. haddaba warar iyo xogo iyo macluumaad ayaynu saaxiibayaal daawadayaal barnaamijkeena idinkugu soo gudbin doonaa. sidoo kale waxaynu soo qaadan doonaa markaasiba Ethiopia marka laga hadlayo Soomaaliya haatan waxay u geysanaysaa dhagar iyo sidoo kaleba arrimo kale aan habboonayn. waxa ay baarlaxawsanaysaa madaxweynaha iyo sidoo kaleba ra'iisul wasaaraha arrimo fashil ah oo dowladda Ethiopia ay qaaday isla markaana hoos u dhigaya sumcadda iyo karaamada dowladda Federaalka Soomaaliya ayaan barnaamijkeena idinkugu soo gudbin doonaa. Abi iyo Farmaajo waxyaabaha ay falkinayaan ayaan soo qaadan doonaa. magacyada 6 dhalinyaro ah oo ay toogatay kooxda Al-Shabaab sidoo kale waan soo qaadan doonaa. daawada saaxiib soo dhawo muuqaalkan like saar sina share garay inagu soo biir subscribe inoo saar channelka Furagan Baralka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaalada inoo halkan idinkugu soo gudbino. waa ku mahadsantahay daawada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba. qaybta hoose ee faalada loo gudbiya commentigana aragtidaada saliimka inoogu reeb. markaana daawada saaxiib waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada ama falanqaynta qodobadii aynu soo dulmarnay. markaana aynu ku bilowno. lama iloobaan xasuuqii Zoobe 14 Oktoobar sanadii 2017. 5 sano ayaa ka soo wareegtay qarixii xasuuqii isgoyska Soobe oo dhacay 14 Oktoobar 2017 kaasoo markaasiba noqday midkii ugu dhimashada badnaa abid ka dhaca waddanka Soomaaliya iyadoo ay ku dhinteen inta la xaqiijiyay dad gaaraya 578 qof halka 316 kale oo muwaadin oo rayid ah waxba galabsanna ay ku dhaawacmeen qaraxaasi ka dhacay isgoyska Soobe 14 Oktoobar sanadii 2017 5 sano ka hor. wuxuu ahaa weerarkii labaad ee argagixiso ee ugu dhimashada badnaa taariikhda Afrika iyo qaraxii ugu dhimashada badnaa ee qaaradda, halka uu sidoo kale ahaa weerarkii saddexaad ee ugu dhimashada badnaa ee argagixiso fuliso taariikhda casriga ah, waxaana ku agoontoobay in ka badan 1,000 caruur ah. saraakiisha dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay sheegeen in bartilmaameedka weerarka uu ahaa xeyndaabka sida weyn loo ilaaliyo ee garoonka diyaaradaha Muqdisho, halkaas oo ay ku sugan yihiin shaqaalaha qaramada midoobay ee Soomaaliya, safaaradaha ugu badan iyo xafiisyada hay'adaha caalami ah oo ka howlgala dalka. gaariga qarxay oo ahaa kuwa xamuulka qaada ayaa ka yimid dhinaca gobolka Shabeellaha Hoose iyadoo lagu soo diyaariyay deegaan kooxda Al-Shabaab ee maamusho. waxaana xusid mudan in gaarigu ka soo gudbay baro control oo ay joogaan ciidamada dowladda sida Sinka Dheer, Ex Control iyo sidoo kaleba Saybiano. sanad walba maanta oo kale ayaa dib loo xasuustaa qaraxan, ha yeeshee ma muuqato in dowladda iyo shacabka ay weli cashar ka barteen. inkastoo ay jaaran yihiin jidadka caasimadda, haddana weli waxaa sii socda dhiigbaxa iyo qaraxyada gilgilaya magaalada Muqdisho. lama hayo xal amni oo la isku haleyn karo. dowladda oo aan lahayn qorshooyin degsan iyo siyaasad amni oo waxtar leh, ciidamada oo aan lahayn xirfad sareysa, haysanna agab dhammaystiran, wada shaqaynta ka dhaxaysa shakhsiyaad ku jira gudaha dowladda iyo Al-Shabaab, cilaaqaad la'aanta shacabka iyo dowladda ayaa qayb weyn ka ah ayaa la leeyahay mushkiladda amni ee xilligan ka aloolsan qaybo badan
oo markaasiba ka mid ah Soomaaliya. Qaraxii 14 Oktoobar waxa uu ahaa mid gilgilay qulubta shacabka Soomaaliyeed, wuxuu ahaa mid mahadho fara badan reebay, uur ku taalana ku beeray dadyo tiradoodu ay badan tahay. Qaraxan waxaa ku dhintay waalidiin caruurtooda u shaqaysanayay, sidoo kalena raadinayay nolol maalmeedkooda si ay nolosha markaasiba haystaan ugu sii noolaadaan, balse waalidiin halkaasi ku qanacsanaya ayaa la waayay. Kuwa qaar ayaa burburka hoostooda ku waxyeeloobay oo xitaa markaasiba katrabiilkii ama cagaf-cagafkii la marsiiyey. Shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, dowladda federaalka Soomaaliya maanta waxay leedahay in Al-Shabaab ay iska celiyaan oo ay ka argutaan, isla markaana argudasho ay sameeyaan. Maanta ayay u furan tahay maadaama 14 Oktoobar 5 sano ay ka soo wareegatay. Maanta oo kale 14 Oktoobar sanadii 2017 ayay ahayd markii gaari xamuula oo laga soo buuxiyay qaraxyo ee argagixisadu ku akeysay isgoyska Soobe oo ah goob aad u mashquul badan. Qaraxaas ayaa waxaa dad badan ay ku waayeen ehelkoodii iyo hantidoodii, kuwa kalena ilaa iyo maanta ayaysanba ka soo kabanin waxyeeladiisii, waxaana ku dhintay in ka badan 500 oo qof, kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. Haddaba 5 sano kadib, wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa sheegtay inuu socdo kacdoon loogu argudayo dadkii Soomaaliyeed ee ku dhintay qaraxaas oo weli u muuqdo raadkiisa oo si sahlan u duugmi karin. Xuska 5 sano guurada qaraxii argagixisada Al-Shabaab ee Soobe Oktoobar 14 2017 waxaa hubaal ah in aan la iloobi doonin dadkii ku waxyeeloobay, iyada uu socdo kacdoon loogu argudayo dadkii dhintay laguna badbaadinayo inta nool, ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay wasaaradda. Xuska sanadkan ayaa ku soo aaday iyada oo markii ugu horeysay uu qayb ka mid ah dalka ka socdo howlgal ay shacabku ka qayb qaadanayaan oo Al-Shabaab lagula dagaalamayo. Waxaa xusid mudan in tan iyo markii uu bilowday kacdoonka dagaal ee ka dhanka argagixisada Al-Shabaab looga xoreeyay kooxda deegaano ay sanado badan gacanta ku hayeen. dhinaca kalena daawadayaal saaxiibayaal, barnaamijkeena haddaynu idinkugu soo gudbino, dowladda federaalka Itoobiya waxaa la soo warinayaa in hagardaamooyin culus ay u maleegayso dowladda Soomaaliyeed ee uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ay saaxiibo dhow yihiin Abiy Ahmed Cali, ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya, ayaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi kala hadlaya sidii loo curyamin lahaa howlgallada culus ee dalka ka soconaya, isla markaana lagu bahdili lahaa dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si aysan mar kale ugu sahlanaan inay hanato qulubta shacabka Soomaaliyeed oo doorashada soo aadan aysanba ku guuleysan. madaxweyne Xasan ayay dhinacyo kala duwan kala dareerayaan nidaamkii dalka xukumayay 5 sano ee la soo dhaafay, kuwaas oo aanan hal xabad xitaanan ku ridin kooxda Al-Shabaab oo markaasiba Soomaaliya joogtay muddadii ay iyagu markaasiba joogeen iyo muddooyinkii ka sii horeeyaba. ugu dambeyntiina saaxiibayaal daawadayaal, haddaynu barnaamijkeena idinkugu soo gudbino magacyada 6 dhalinyaro ah oo ay toogatay Al-Shabaab. kooxda Al-Shabaab ayaa fagaare ku yaala degmada Saako ee gobolka Jubbada Dhexe waxa ay ku toogatay rag ay ku eedeysay in ay basaasiin ahaayeen sida iyada sheegtay. fagaaraha toogashada oo ay ka dhacday ayaa waxaa ku sugnaa dad shacab ah, waxayna kooxdan 6 ragga ah oo ay toogatay ku eedeysay in ay indho u ahaayeen sirdoonka Mareykanka ee CIA loo yaqaan sida ay kooxdanba sheegtay. uma jirto cid madax bannaan oo xaqiijin karta sheegashada kooxdan ee ah in dadka ay toogatay ay ahaayeen kuwa basaasiin ah. Al-Shabaab ayaa dadka eedeysay uu maxkamadeysay kadibna dishay, ayaga oo aanan helinba garsoor madax bannaan oo ay isku difaacaan. ma ahan markii ugu horeysay oo ay kooxdan toogasho ku fuliso dad markaasiba eedeen noocaan ah loo soo jeediyo, waxaana suuragal ah in dadka la toogtay yihiin dad shacab ah oo ka soo horjeeda fikirka kooxdan. toogashadan ayaa ku soo aadaysa xilli uu dalka ka socdo kacdoon ka dhana kooxda Al-Shabaab kadib markii ay kooxdan xasuuq u geysatay dad shacab ah oo aan waxba galabsan. haddaba magacyadan waa kuwan dadka dhalinyarada la toogtay: Xasan Maxamed Aadan oo loo yaqaano Mustaf, da'diisuna tahay 33 jir; Cabdiqaadir Maxamed Sheekhi Cali oo loo yaqaano Buule, da'diisuna tahay 29 jir; Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ibraahim oo loo yaqaano Dalmar,
da'diisuna tahay 27 jir. xasan cali xaaji cabdiraxmaan da'diisuna tahay 43 jir. cabdisalaan ibraahim maxamed oo loo yaqaano shaalle da'diisuna tahay 38 jir. cabdiqaadir xuseen cabdi oo loo yaqaano gobol da'diisuna tahay 22 jir. dhalinyaradaas ayaa al-shabaab ku toogatay halkaa wixii warar ay kusoo kordhana waa daawan doontaan. daawada saaxib muuqaalkan lagsar sinashar garay nagu soo bir tan iyo barnaamijkanna waa bacdi nuxurka oo idinle saaxiibayaal daawadayaal nabadgelya amaana allah.